waxaan ku wareejin doonaa furaha taliyaha saldhigga gaashaanle Axmed Yare. Welcome. Which is in there. Then we have the complaint desk. That is. Ma ilaabi doonaan dadka reer Cadale walaalahooda Amisom iyo saraakiisha ka socota ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo wasaaradda arrimaha gudaha dadaalka ay u soo mareen dhulka dheer ay uga yimaadeen ciidamadii booliska oo loo baahnay oo degmada u baahneed ayna ay noo keeneen aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. waxaa kaloo intaas ku daraynaa degmadu weli wax gurmada Amisom ka hor soo ma gaarin. waxaan rabnaa in saldhigga booliska naloo dayactiro, waxaan rabnaa in isbitaalaadka naloo dayactiro, waxaan rabnaa in iskoolaadka naloo dayactiro, waxaan rabnaa ceelashu biyo wasaqaha laga cabaayo biyo sifaysan inaan helno. That police station which is in this they will recruit police activities are in the area to found someone to be and it is part of the stabilization. As part of the stabilization program, we are here today to hand over a police station that was built by the Amisom and specifically for the stabilization of the recovered areas. You agree with me that after the operations, Indian and Eagle operations, we recovered a number of areas, and after the recovery of those areas, what next? It meant that we need to stabilize the area, meaning that police work should come in to ensure that they help to ensure that there is rule of law in the area as the military continues with the recovery of the areas. the building very small. And he's saying the engineering is constant to show us what to do the work. So we shouldn't have issues, and this is just